halkan waxaan ku qaadanaynaa 7.2 7.1 horay waxaan ugu soo qaadanay WH question maantana waxaan qaadanaynaa cashar kale aad muhiim u ah dadka rabana in ay luuqadda si deeply u bartaan ay anfaceen. Look at the subject and object pronouns and possessive adjectives. waxyar ila fiiri bal subject pronouns, object pronouns and subject pronouns dhammaan ereyada faacilka kuwa mafcuulka ah, ereyada falsameeyaasha kuwa falhelayaasha iyo possessive adjectiveka kuwa lahaanshaha tusaaleeya ila fiiri bal. Okay, qaybta subject pronounska waa qaybta u sarreysa I aniga, you adiga ama adinka, he asaga, she iyada, it iyada, we annaga, they ayaga. halkan waxaa noogu qoran object pronounska marka aydani waa subject waa falsameeye falhelasay ku noqon kartaa, waxaan leenahay me ayay ku noqon kartaa. way haddaba haddii aan rabno qaybta you inayn object ka dhigno isla you unbaa soo laabanayso, saas ula soco. qaybtan kale lahaanshaha yo ayay noqone, yo waxaaga. qaybta he imaa, he asaga object ama falhela waxay ku noqon kartaa him. okay, lahaanshana waxay ku noqon kartaa his wixiisa. mafahant way qaybta she imaa, she iyada, ha iyada waay, ha iyada waayahay, ha iyada wixeeda na waa possessive adjective. okay, it iyada weeye sideeda unbay usoo laabanaysaa it. okay, lahaanshana waxay ku noqon doontaa its, waxay u eg tahay it is laakiin its waxaan leenahay apostrophe st oo in wax lasoo yareeyo caddeeyihiisa kuma jirto, saasaa ku fahmi. we u imaa, we annaga, okay, as annaga, waxeena waxay ku noqonay awa waxeena. qaybtan imaa, they ayaga, them ayaga unbay noqonaysaa, the wuxooda, the wuxooda. so englishka ayaa xoogaa waxaa moodaa inuu nagaga fiican yahay qofka soomaali ku hadlo. subject iyo objectiga labadaba waa isku eg yihiin, oo aniga oo I ah iyo me oo aniga ah, labadaba aniga unbaa la isticmaalaa. okay, so wuu fudud yahay haddii aad si fiican oo meel qabta aad u dhegaysato, wax badan ayaad ka macaashaysaa. halkan waxaa noogu qoran exercise complete dhamaystir the sentences jumladahan. do you like tennis? tenniska ma jeceshahay? yes, ha, I love it. it ayaa ka maqan. yes, ha, I love it, waan jecelahay. groupkan kale is Marcus here? Marcus meeshan muu joogaa? yes, he is. ha, wuu joogaa. yes, he is. ha, wuu joogaa. okay, do you eat chips? chipsiga ma cuntaa? yes, I love it. I love them. ha, waan jecelahay, aad baan uga helaa. okay, the boys wiilashu like waxay jecel yihiin. macalinka wuxuu noqon karaa waxaan leenahay their teacher. their teacher macalinkooda ayay jecel yihiin. okay, the boys wiilasha like waxay jecel yihiin their teacher macalinkooda ayay jecel yihiin. so exerciseskana qaabkaas ayaan kugu soo diyaariyey oo jawaabihii banaankaas ayay kugu qoran yihiin. saaxiibada u gudbi. mahadsanid.